shirkani wuxuu ahaa shir gaara sidaad u sheegteen wuxuu bilaabmay 8 waxaa lagaga wada hadlay waxa weeye sidii deynta Soomaaliya looga cafin lahaa iyo shirkan soo socday weyn oo maanta dhamaad noqon doona hadii la yiraahdo maalinta dhamaadkeeda wixii lagaga wada hadli lahaa baa laga wada hadlay wixii loo baahan yahay deynta in la cafiyo ayaa laga wada hadlay xagga iyaga halkaan taaganahay ee meeshaan marayno ayaa laga wada hadlay xagga dawladaha iyo dadka deynta inagu leh iyaguna waxay ka hadleen ama dawladaha noqdaan ama ha noqdaan beesha caalamka kale waxa iyaguna ka hadleen sida ugu diyaar garoobayaan in Soomaalida deynta laga cafiyo iyo wixii deynta cafinta dabadeed imanaya ayaa laga wada hadlay runtii waxa weeyaan shir yar oo kooban buu ahaa oo dadka ay khusayso oo kaliya ka soo qayb galeen ra'iisul wasaaruhu wuxuu horseed ka noqday markaa inuu u sharaxo halkaan anagu taaganahay iyo arrimaha maanta aan wadno wadada deyn cafiska ee aan soconaa inay tahay wax anaga noodana aanay ahayn wax dad kale aan ugu danaynayno ayaa laga wada hadlay marka shir diyaar garoobay shirka kale weyn ayuu runtii ahaa waxaana gaar ahaan looga hadlayay waxa weeye wadadan socono iyo arrimaha maanta aan doonayna inaan qabano